Assalaamu calaykum dhammaantiin waan idin salaamay meel kastoo aad joogtaan. Waxaan ka hadli doonaa kulan saaxiibtinimo ah oo dhex maray Arsenal iyo Bournemouth. Kulanku waxaa lagu ciyaarayay Mareykanka. Sidaa ogtihiin waayahan dhan Mareykanka ayay ka shidan tahay oo kulamo badan oo saaxiibtinimo ah lagu ciyaari doona. Haddaba kulankan waxaa la fiirinayaa Arsenal maadaama kulankii ugu dambeeyay ee Premier League ay ciyaartay aan ogeyn Arsenal in ay badisay oo koobka laga qaaday. Hase ahaatee kulankan si fiican ayaa loo fiirinayay walow kulamo ka waaweyn ay soo socdaan oo saaxiibtinimo ah oo lagu ogaan doono sanadan iyo Arsenal awoodeeda. Horta Arsenal ahaan lagama shakin karo oo mid tayadeedu aad u sareyso. Ku darso Arsenal sanadan difaac shub ah ay la soo wareegtay taas oo ka dhigaysa sanadii hore naadigii ugu difaacadka in difaac kale ku soo daray balaayarintooda. Hadda Arsenal striker iyo waxyaalahaas ay raadinaysaa difaaca ayay u ceel qabtay oo aanay ka soo dhamaatay. Haddaba Arsenal Bournemouth hal ayay ku dhamaysatay 90 minutkii balse taasoo markii dambe penalty kaga imaatay. Arsenal balaayarinteedii tayada wanaagsan rag badan oo Nketiah, Nelson, Partey, Ben White balaayarintaas oo dhan way ciyaarayeen. Hase ahaatee Bournemouth kama sharyaro. Bournemouth waa is adkeynaysaa. Last 7 game ee ugu dambeysay ay labadan iska hor yimaadaan Arsenal ayaa wada badisay tamaan walow kulanka hadda oo 90 minutes ku dhamaaday. Hase ahaatee Arsenal ugu dambeyn waa ay ka soo badisay Bournemouth walow Liverpool iyo Manchester United ay u dhimayeen. Hase ahaatee Arsenal sanadan istiyaarin badan ay ku jirtaa. Haddaba dhammaantiin aad u mahadsantiin muuqaalkaygan hadduu ku soo gaaray like saar. Tayo Sports mar walba waxaan kugu soo gudbin doonaa ciyaaraha qaybahooda kala duwan. Sidoo kale Chelsea waxay draw la gashay koox Ingiriiska ka dhisan oo aad u yarayd. Kulankaas waxyaalaha laga calaamiyay haddii aan wada eegno kabtankii Chelsea ee James ayaa soo laabtay. Sidoo kale Nkunku waxaa loo arkaa sanadan mid bandhig fiican qaadan doona haddii uu dhaawac ka badbaado. Chelsea xaalkeedu halka ayuu marayaa. Haddaba dhammaantiin waxaan ka codsanayaa mar kale haddii aad ku cusub tahay Tayo Sports inaad ku soo biirto oo aad like iyo follow iskugu kaydarto muuqaalkana copy link 3 jeer aad taabato. Haddii aad YouTube kaga daawayso subscribe iska saar waxba ka dhigo maysi anakana wax weyn ay noo tahay. Dhammaantiin aad u mahadsantiin.